halkan aad arkaysaan iyo dhismahan aad u jeedaan waa markas dhismihiisu uu socdo waxa lagu magacaabaa Daarul Imaam Shaafici marka hore waxaan ka codsanayaa inaadan muuqaalka isdhaafin sheergaray oo la wadaag saaxiibada muuqaalkani waa muuqaalkaagi haddii aad rabto naftaada inaad maanta wax ola baxdo haba yaraadaan waxa aad la baxaysaa haddaad rabto inaad maanta naftaada wax ola baxdo waa fursadii aad wax ola bixi lahayd waalidka haddaad rabto inaad wax u bixisana waa fursadii aad waalidka wax ugu bixin lahayd waa masjid waa markas cilmi ah waa waqaf fi sabiilillaahi ah waa meeshii mudneed meeshaas in laga faa'iideysto oo qof walbaaba waxa uu ku darsan karo ku darsado markaskan waxa gacanta ku haya jamciyad la yiraahdo Al-Furqaan oo 30 sano ee la soo dhaafaba ka shaqeyn jirtay arrimaha khayriga ah inay maraakiis dhisaan iyo goobo waxbarasho diini ah ay dhisaan ayaa gacanta ku haysa maanta qof kasta oo hadalkayga fahmaya waxaan ugu baaqayaa inuu kana faa'iideysto bulshadii wax ku baran lahaydna uga faa'iideeyo masaajidkan goobtii lagu cibaadeysan lahaa hoyga ardayda lagu hayn lahaa oo ay seexan lahaayeen culumta meesha ay ku baran lahaayeen ayuu isugu jiraa haddaba waxa idin kula wadaagaya waxa weeye inaad dhismaha masaajidkan iyo sidoo kale markaskan dugsigan maaragtay Ilaahay kuma samadiiday culumta iyo wax kasta oo diini ah lagu baranayo inaan maanta si wada jir uga wada faa'iideysano markaska waxa gacanta ku haya culimo bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda caan ka ah laga yaqaano ixtiraam weyn ah bulshada dhexdeeda ku leh taasi baahi weyn bay u qabtaa xoolaheena inaan uga qayb qaadano Ilaahay ugu dhawaano sadaqadii jaariyada ahayd ee qiimaha badnayd ee qofku naftiisa iyo waalidkiisba u bixinayay maanta meesha ugu mudan weeyaan daartaas al-Imaam Shaafici ee duleedka magaalada Cadaada ku taala inaan uga qayb qaadano akoomadan hoos ku qoran dhammaantood waa ay shaqeynayaan waana kuwa loogu talagalay qofka Ilaahay dartiis wax ola baxayaa inuu wax ku soo diro khayr u niyeyso Ilaahay dartiis u niyeyso aakhiradaada inaad wax ku helaysana u niyeyso akoomada halkan ku qoran aad arkaysaan wax kasta waxaad awoodo ee sadaqa ahaan aad ola baxayso halkan kula bax $1 oo aad maanta la baxdo oo aad akoomadaas mid kamid ah aad ku dirto ee masaajidadaas lagu dhiso ama markaskaas lagu dhiso inta wax lagu baranayo oo lagu cibaadaysanayo ajarkaagu waa ku soconaya haddaad dhimato iyo haddaad nooshaaba waa ku soconaya waa sadaqa jaariya ah baaqa culimada aan dhageysano dadna akoomada waa kuwaanaha halkan ayaanad ku hagaaji kartaa waan hubaa bulshada Soomaaliyeed khayrka waa ay jecel yihiin aan ka faa'iideysano maanta fursad baa noogu jirta aan ka faa'iideysano waa halka culimadu ay ka dhihi jireen naftaada u qaad naftaadana ka qaad yani naftaada ka qaad naftaadana u qaad waxa weeye waxa jeebkaaga ku jira ka qaad naftaada hadana waxaad faa'iidadooda helayso la hubo oo naftaada u qaad bari baad ku baxsanaysaa sida waa macnaheedu marka tani waxa weeye naftaada ka qaad naftaada u qaad aan ka faa'iideysano markaskan ha baqeelin $1 hayso $100 hayso $500 hayso $10 iyo $50 iyo $1 hayso xataa ha baqeelin maanta